gabadha waxa isugu tagay carab oo dhan oo isku soo bahaystay ilaa heer akoonkeedii TikTok live-ka laga xiro. marka aniga hawada la saaray ilaa 10 bari ma galeysaa leeyahay arintaas kaliya maaha message xataa noo soo diray ilaa waa ku station group marka sameeyeen bodyguard waxay dib ugu soo noqotay Soomaalida si ay u wargeliso hadda Soomaalida xamaasad bay ku ogeyd xamaasad bi arwaalay dadkaas ciwaanadooda ma noo soo share gareyn kartaa annaga dabka saareen maanta meeshii la iga soo dhiig malahan waxay ku leeyihiin Soomaalida waxa lagu gataa milix war ana idin haayo hadii aan ugu shubtay fadlan channelku waa channelka ku soo dhow gacmo furan commentiga maanta waxa noogu soo qortaa FIFA Xanaan gabadha Xanaan baa dhaa FIFA Xanaan laytan barnaamijka noo saaro wakiil maamina horta salaamu calaykum soo dhawaada ana maanta update idin wada gabadhana u jeedaan waa gabar taqaana ama soo bandhigta taariikhyada umada Soomaaliyeed ay leeyihiin dadkan meesha ka soo farcameen boqortooyooyinka ay kala lahaan jireen meelaha ka kala tirin jireen macnaha waa dad gabar dabagal ama si fiican u taqaana ama si fiican u baratay ama si fiican u dabagashay oo indheysay taariikhda umada Soomaaliyeed iyada iyo carabtii oo dhan waliba dhankaas iyo khaliijiintii ayada wax walba afkeeda ka sheegi doonta kaga sharixi doonta yaan in kaga hordhicine gabadhan horta isbartay intaan aqoonin Xanaan baa la yiraahdaa waa dadka noo dagaalamo dhanka carabaha furimaha carabaha noo joogo halka ka dagaalamo way oo sharafteena difaaca iyadoo taariikhda Soomaalida soo martay ka sheekeynaysa sababtu waxay ila arka oga faraacinada kuwa min zaman family-ga ugu horeeyay oo xukumay Masar inay asal ahaan ka soo jeedeen Soomaaliya waxaana soo cadeeyay waxaas DNA-da marka laga qaaday xabaalaha qubuuraha masaarida qadiimka ah boqortooyooyin waxay ahayn familiyaal badan familiyaasha ugu horeeyay DNA-da maanta Soomaalida jooga weeye dadkaas xataa waxay ku hadli jireen afsoo gabadhii marka maaldood waxay soo gashay iyadoo af carabi ku hadlaysa bay TikTok soo dhex gashay أحد الأصدقاء يعني وكنا نتناقش فيه عن موضوع الإساءات المتكررة من جيراننا اليمنيين ضد الصوماليين يعني سواء في السوشيال أنا إدين هايو وقف صومال أيضا أنا إدين هايو إزدجية وحيا دلقات موجية حد يرددك أي سوء على مدسي سيد الجوني ذا وددك اللي يرادو يمنيين أو درس نلقى واي مركا من دام أن صومالنا هيدتها إيشو قديني أي صوماليين أنا هالمرفيرين نبل يضو أف صومالي نوش رحيسة سيدي وحودعين سوري والله هنا ما أنتوا لن عرفكوا هالطيني بس ما أنتوا واحد دعي ميلكوا لكنا بابوح الصفر لايف مركو يصوت دري وكقيد قلني إن إرهنا ولدتك نقبصة اسبيشال قلدان بودي جابتا أضع على الحاصل شيء كذا سيء وذين وحي قلين تاريخ أيوة مركا هذا لبيان شيء واقع مركا مشكلة ده محن تهدأ لدو دحو كليهين أضل صوماليا سيء هذا شاء صومالي نقول لي نقبصة دي متشرتو كذا يقول حمسينيين صومالي وخلاص عشان عربي متقاني فيجا مرة بروح يسكرين وكيلني عرفت نوجيهين ما فهمتي ما أنت حكوا وكيل أنك عرفت أنا ولا نقول أنا أوريدي أورك عرفت وكتشنا وين كهريني تاريخ الصومالي ده أنا كهر رئيس تاريخ عرفت الرمى مركب واحد زي شيء كذا التاريخ بيسكب بدل شيء سؤالي ويدين وإحنا هذا حتى كهر واحد تري زي لعي وكرة صومالي أنسابي واحد ويدين وحكوا عنه أنساب تعرفتكم اعترافه أو أيجا all the respect أيجا وطالع لكن مركب لقى هذا DNA حضارة دي واحد أنسابته وواحد لقري وحكي شرا ماله والله إسكالي كرباش بوالدنا سعودي ليس اللي شوي dood baa marka socota arrimihii aad socotay kuwa marka soo galay waxyaalo waxa hadda maanta ogaanay haduu qof live soo galo iska aamuso qofkaas marka soo galo meesha gistiga uu balaqi kara dadka hoos kaliya ma aha soo haduu ku balaqo degdeg baa marka hawada uga baxay marka aniga hawada la saaray ilaa 10 bari ma galeysaa leeyahay arintaas kaliya ma aha message xataa noo soo diray ilaa waa ku station group marka sameeyeen bodyguard dadka marka qof caayay maray qof ku soo maray all the respect baa laha حتى تاريخين للدوليين بوحة ويديني معلومة كهر بوحة كده بلدقين I think شالي مع دران معناتي قاطين حرية دسع كل سنة كيوي ويجرون وين مركو حوجاني دد قاعد قول لي إن أنا كان للدوليين حق علمي ده لما كان مركو جروبي سمسين كله ويلل وأنا ما ورطنا بروح على لضج على يد يعني علشان جبر أمنا جم الدمر بعد الكسي كنت طبله هذا ما هطلان الثاني شيء علشان قف حبرتي وحكومي وحويات عرب بدن بنا داوني سو وحياله ay ka naxeen baa jiro oo anaga dan taariikhdeena soo dhigna dad Soomaaliyeed ay qabala taariikh bay noqonayaan qolada Yemen ta
so that's why waxay yiraahdeen ayadoo dhan hawada laga saaro wiilashii live ka haystay anigana ilaa hatta safxadayda balaaq baa ku socda ay bay noo soo qorayaan ay waxbana naga ma tarta dabcan anigu waxaan ahay dad royal family ah akhlaaqdeena si kasta noo caayo we don't care waxay ku leeyihiin Soomaalida waxa lagu gataa milix isaas cirib Soomaali bay xoogaysiin doobay